إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. xaflad si xeer sare loo soo agaasimay ayaa maanta ka dhacday madrasada Badar ee xarada qaxootiga Dhagaxley. xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galeen arday, macallimiin, waalidiin iyo sidoo kale culmaadiinka xarada qaxootiga Dhagaxley. xafladani ayaa waxaa ku qalan jabiyeen ka badan 12 arday kuwaas oo xifdiyeen taxfiidka Qur'aanka Kariimka. haddaba mid ka mid ah ardayda qalan jabinayeen waalidkooda ayaa ka hadlay xafladda maanta ka dhacday xarada qaxootiga Dhagaxley asagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka soo qaybgalka munaasabada. waxaana ka mid ah hadaladiisa sida tan ugu faraxsanahay marka soo noqdo ardayda shaqada ma sha Allah عندنا بس هذه يعني قصة قالوا أنا كنت مجا عوالدينك يعني مثلا يستعمل بدأ يكون على شيء فضل وقرأ يلوم مرة خصوصا يعني فضل حاجة توفرا يعني حديث لو خيركم من تعلم القرآن وعلمه يفضل على كفلا يعني أعرف سدح وقتي يعني سدح مر مثل كرات الدنيا مثل الدنيا وخبرنا إيمان الآخرة يعني حلوك من هنا كفضل بين السنجرين يعني حلوها من يقف واحد وانت تهجد كلها تكون ما تراويح زي إنه في البلد العروسة يعني غفر بحيث أقوم بجستين وحفظ كلام الله يحدثين يعني غفر تعلق المرين أنتوا ينجوا حقوه مالك يجوا قرآن حفظين ونفي جيب قاس وأفدوا إيه أنا وأقر أنا وقتي من ذلك أحد حلو المرين يلوين غفر حلو لك المدوين قبرين حلو المرين غفر قرآن يقال لحد كله المرين كان سدحات مالك يوم القيامة يعني اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل يوم القيامة في الدنيا ليه يعني أصل قولك يعني مجرد أنا حاجة آخر آية تقوها يعني عايزة أقول لك أحرمش فرحبون لا يحتفظ بالقلمتها يسيجن يعني أدوني فقط من ذات تحميسة خبرجي سورة كلا ما نجي مقاومة سورة كلا مثلا أنت تعرف أطلع حدثي ما تو أبقى نخبره إنه كتب على القرآن أخلاقه وكم مقدار sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah macallimiinta madrasatul Badar waxaana ka mid ah hadaladiisa sida tan magacayda waxaa la yiraahdaa Khadar Maxamed Umar kamid ahay macallimiinta madrasadan Badar ay maanta ka qalin jabinayeen ardadan xafladan maanta isugu imaanay aad baad u mahadsantihiin marka waad dhammaantiin waan idin salaamayaa ardada maanta madrasada ka qalin jabinaysay oo tiradooda ay tahay 12 arday dafcadana ay tahay dafcadii 7aad madrasadan Badar oo 7 sano furan 7 sano shaqaynayso waxaa maanta ka qalin jabinayaa dafcadii 7aad ugu dambeyntiina ardayda maanta ka qalan jabiyeen madrasatul Badar ayaa dareenkooda warbaahinta u soo bandhigeen anigoo ka dareemay wajiyadooda farxad iyo rareen waxaana ka mid ah Maxamed Xasan Umar waxaan si faraxsanahay marka madrasada Badar aan ka qalin jabiyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay Dawladda Cabdishakuur aan Khaliif waxaan ku faraxsanahay macallimiinta oo waxay soo bareen iyo waalidiinta oo ila dadaaleen intaas oo dhan oo mahadcelinaya waxaan ku faraxsanahay maanta shahaadadiisa
الله وبركاته. مجد والرحمن الشيخ أحمد علي. اللهم تعالى عادي وفرح سنة الدين كذا لو مسوي كرم معلمين ترى أنبر يعني لي وفرح. لو ذيك اللي ما رجعت له وأنا سلامة فرح. أنت كلام حاليا إني تام كسيدة بس مش هيقطع عيدي ولا. kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay arday ay ka qalan jabiyaan madrasatul badr ee xarada qaxootiga dhagaxley xasan cumar xasan kaafi telefishinka caalamiga ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab.